wafdi ballaaran oo ka socda dowladda Itoobiya oo hogaaminaya wasiirka waraabka iyo dooxooyinka oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidamada federaalka dowladda Itoobiya ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. intii wafdigan ay ku sugnaayeen magaalada Berbera waxay soo booqdeen goobo ay ka mid tahay dekedda weyn ee Berbera. sidoo kale waxay soo indheeyeen masaajidka taariikhiga ah ee Turkiga kaasoo ay dhistay dowladda Ismaaniyiintu. isla markaana waxay kulan la qaateen maariyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Ahmed Maxamed Xaashi oo iyagu hadal la soo dhaweyn oo soo jeediyay wafdigan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta waxa sharaf weyn noo ah wafdiga ka socda dawladda Itoobiya dawladda dhexe iyo dawladda kilinka shanaad aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa dekedda weyn ee Berbera guud ahaan gobolka Saaxil run ahaantii waxaan soo tusnay serviceda faraha badan aynu qabano waana soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan wada shaqayn dhow yeelano waxaan leeyahay ku soo dhawaada dekedda Berbera إن شاء الله بسم الله الكريم waxaan soo tusnay dhismihii cusba oo iyadana dhawaan la furi doono taasoo xiriir weyn oo dhaqaale naga dhaxayo annaga iyo waftiga qiimaha leh madaxda kala duwan ee dhinac kastaba leh heer wasiir iyo hogaamiyayaasha kale ee jananada ciidamada iyo dhamaantood marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad ku soo dhawaada gobolka Saaxil oo runtii aanu aad ku soo dhaweynayno muhiim buu inoo yahay socodkeenan iyo waftigeenan in mar walba xaaladda taagan iyo sidii nabadgelyada loo adkeyn lahaa iyo xidhiidhkeennii hore aanu lahayn wada shaqaynta labada geesta kale wafdigan ayaa ka warbixiyay ujeedada socdaalkooda uu salka ku hayo. waa mahadsantiin kolley safarkana wuxuu ku aadanaa in la sii adkeeyo xiriirka labada dhinac dhanka amniga marka shalay Hargeysa aanu joognay oo shirarku xagaas ay ku qabsoomeen maanta Berbera aan soo booqannay Berbera waa meel muhiim u ah dhaqaalaha mandaqada gaar ahaan alaab badan iyo dhaqaale mataqaanaa ganacsi xoog badan oo mataqaanaa ka dhaxay labada dhinac ayaa wuxuu soo maraa Berbera soo maraa marka qaybo badan oo nolosha dawladda deegaanka Soomaalida shacabkeedu wuxuu ku tirsan yahayba waxyaabo badan xagan ka yimaada marka in aanu eegno dekedii soo booqanno waxay noo tahay farxad weyn in aan aragno dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee ka socda dekedda iyo alaabaha deegaanka la geeyo kulley dadku og yahay oo waxa laga yaabaa inay ka walbaharsan yihiin la dagaalanka kontrabank in uu saameeyo noloshii dadka marka taas waxaan rabnaa inaan shacabku u sheegno labada dhinacba inuuna saameyn doonin oo mataqaanaa dhaqdhaqaaq dhaqaale oo sharci ah ayaa jira oo kaas in la sii xoojiyo oo loo xoojiyo hab aan culays ku keenaynin nolosha shacabka labada dhinacba ayaa qayb ka ah waayo nabadgelyadu security economic security waxa la yiraahdaa ayaa jira oo dadku hadii uusan noloshiisii waxyaabihii ka soo saaranaya hadii culays ku yimaado nabadgelyada waxay u dhimaysaa marka ma aha uun mataqaanaa amnigu ma aha uun waxyaabaha kale ee dhaqaalahan uu saameeyaa Abdirashiid Mubarak Cabdi Abdirashiid Suul Goobjoog TV Berbera.